بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. والله Soomaaliyeed meel joogtaan ba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala idinku amaayeelo cidii dhibandhibka Allah ka qaado, cidii dan la Allah u oofiyo, inta baahan Allah deeqo, inta bugta Allah bogsiyo, intii dhimatay Allah u naxariisto, waalidiinteen Allah u naxariisto, annagana Allah nooga daba naxariisto, dalka, diinta, dadka iyo dowladnimadaba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoo badbaadiyo. maanta waa maalin weyn, hambalyo ummadda Soomaaliyeed meel joogtaanba, hambalyo xasan iyo xamse, hambalyo reer Laascaanood. qodobo dhowran ka hadlaya. qodobka koowaad waxaan kula hadlayaa reer Laascaanood. sharaf iyo mudnaan baa leedihiin, dad gobaa tihiin. ra-iisul wasaaraha saa u soo dhaweyseen iyo dowladdiisiina taariikhdaad ku gasheen. midnimada Soomaali bay u taallaa. meeshaas wax maamul goboleed ka hooseeya ma aqbalaysaan. ciddii wax ka hooseysa la timaadana waa cid aan realistic ahayn. SSC khaatumana lagama celin karo maamul goboleed, waa uun lagu kala ceeboobaya, dad baa ku ceeboobaya mooye lagama celin karo. meel ka hooseysa ha ka ciyaarinina. waxba idinkama gelin midnimada. ummaddaa ula simantihiin, Soomaaliya oo dhan baa ula simantihiin. inay ka wada shaqeeyaanna iyo dowladda federaalka ah oo loo dhaarshay inay midnimada ilaaliyaan iyagaa laga rabaa. laakiin idinku halgankaa gasheen iyo dhiiggaa daadiseen iyo dhibaatadii laydiin geystay iyo naf iyo maal wixii idinka burburay, wax ka hooseeya maamul goboleed oo aad ku gadanaysaan horta ma jirto. reer Laascaanoodoo gobbaa tihiin. ra-iisul wasaaraha oo gobolkiisii Jubbaland laga soo xirtay, oo gobolkiisii kaloo Puntland laga soo xirtay, si aad u soo dhaweyseen waa ku mahadsantihiin. kelmaddaas idinkaa idin leeyahay. qodobka labaad waa madaxweynaha. madaxweyne, wax kastoo laysku khilaafsan yahay, laba kelmadood ammaanteedaa leedahay. anigu kreditka waa bixiyaa, meeshay duug ku tahay waa dhigaa. Somaliland waa qayb ka mid a Soomaaliya, ma aha waddan go-an. dhaqanka iyo siyaasadda international lawga iyo caalamiga ahna waa saas. qayb baan jarayaayoo ictiraafaya iyo dowlad hebel baa ictiraafi karta iyo halla ictiraafo iyo waxaasna macna kama sameeyaan aragtida indhaha international lawga. waad ku saxan tahay, waadna ku mahadsan tahay. arrintaasina ummadda Soomaaliyeed waxay tusaysaa midnimada Soomaaliya iyo wadajirkeeda. saddex qaybood oo layna ka goosto, gumaysi goostay, inaan wax dambe raacin, inaadan ka kaftamayn bay tusaysaa. saluud, salaam baa kuugu saaray arrintaa. qodobka labaad, in ra-iisul wasaarahaagii aad u dirtay Laascaanood inuu ka dego oo dowladdaadii oo dhan ay Laascaanood joogto, ayadana waad ku ammaanan tahay, waana geesinimo. ayadana salaam baa kuugu saaray. qodobkaas intaasaan kaaga haray. waxaan maqlayaa warar hoose oo aanan rabin inay run noqoto, oo ah inaad leedahay maamul goboleed wax ka yar ha laga dhigo SSC khaatumo, oo sida gobolka Banaadir oo kale ha loo ictiraafo. waxaasi kaana gadmi mayaan. kreditkaas aad hadda shaqaysatayna waad cunaysaa, oo rati heeryadiisi dib u cunay baad noqonaysaa. ha samayn. hadday kugu jirtay ka noqo. qodobkaasna waa talo. qodobkayga saddexaad waa ra-iisul wasaare xamse. xamsow, dhowr qodob oo ammaan ah baan kuu hayaa. magacyaa laguu bixiyey horay. hadalla aad dhihi jirtaa waxaa ka mid ahaa tartiib tartiib baan usoo noolaanaynaa. hubaal qodobkii ahaa goonigoosadnimadu inay tahay khatar amni qaran la mid ah tan shabaab oo aad ka soo saartay golahaga wasiirada kol hore, aad baad ugu mahadsan tahay. sharaf iyo qiimaad leedahay. taariikhday kuu gelaysaa. waxaa taariikhda kuu gelaya ra-iisul wasaare madaxweynihiisa daacad u ah oo aan mucaarad iyo dagaal ku ahayn. iyaduna waa sharaf. ra-iisul wasaare inuu madaxweynihiisa la shaqeeyo waa gobonimo. qodobka saddexaad
oo aan adiga kugula hadlayo xamar kursi kuma yaallo xamar kursi kuma yaallo hadda markaa tagtid baarlamaanka oo kugu buuqaya qaylaa kuu diyaara kursigaaguna ma yaal xamar dee naficiisii iyo dhuuxiisiina cuntayo 3 sannadood baa kuu dhammaatay maalmaha kaaga haray 3 sannadood haddii hadda aa weydid wax kaa maqani ma jiraan taariikhda gal oo taariikhda waxaa ku gashaa SSC Khaatumo اعترافkeeda iyadoo ah maamul buuxa oo dhammaystiran way ka dhul weyn tahay galmudug waa ka dhul weyn tahay waana ma garanaysaa gobol iyo bar dhinacaasna kala mid bay tahay dhinaca dhul ahaan iyo masaaxadana waa ka weyn tahay اعتراف dhiig iyo dhacaan baana ku soo daatay اعتراف taariikhda ku gal in dhalinyaraha waa tahay mustaqbal siyaasadeed baa leedahay waxaad berri nafacsato mustaqbalkaaga siyaasadeedna aad maadaama aad meeshii aad ka soo gashay dowladnimada oo ahayd Jubbaland aad gaftay tan iyay ku dhaafay haddii xataa shaqada lagaa eriyo waxba kaa xumaanaya mustaqbal fiican baad yeelanaysaa taariikh cusub baa qormaysee bejkaasi dahabiya u qoro qodobkaasna adaan ku leeyahay qodobka ugu dambeeya waxaan leeyahay qoladii goorna goosadka iyo nimanka siyaasiyiinta ah ee ku fadhiya kuraasta muqdisho xildhibaanada dir waqooyi idinkana gabalkiinii baa dhacay gaar ahaan qoladiina muqdisho joogta 30 sannadood baad mushahar waxa ku qaadanayseen midnimaan ka shaqaynaynaa markay idinku dhoweyd bay ahayd maanta inaad laascaanood wada joogtaan bay ahayd labo inaad ka shaqaysaan bay ahayd cabdi xaashi iyo maareeye iyo qolyihii hadli jiray oo gabadhii yarayd ee gobsan iyo kuwii la midka ah hadli jiray ra-iisul ku-xigeenkii saalax dadkii hadli jiray oo hadallada tuurtuuryada ay ka soo fakan jireen maanta jaanis baa idin dhaafay taariikhdaad geli lahaydeen waxaa suurtageli lahayd inaan kursiga laydinkaba qaadinba ood weligiin haysataan waxaa suurtageli lahayd in laydinku ixtiraamo madasha siyaasadeed waxay ahayd maanta inaad ka shaqaysaan inaad tan inta ka qayb gashaan halkaa ku dabaaldegtaan midnimadii Soomaaliyeed aan raadinaynay baa soo dhowaatay oo halkaan agtayada naloo keenay qayb baanu ka nahay aad muujisaan inay daacad ka tahay inaad midnimada meesha u fadhidaan labo inaad ka shaqaysaan deegaanada kale oo Burco ka mid tahay oo tuulooyinkaad idinku ka timaadeen oo dhan ay ka mid yihiin inaad ka shaqaysaan oo campaign ka gashaan ra'iisul wasaaruhu inta ka tago laascaanood ku waxtado midood xataa tuulo yarba ha ahaatee oo caalankii ka taagtaan oo tiraahdaa waxa naga deegaan doorashadeedii dadkaanu matalaynay waliba waxaan rabaa inaan idiin sheego shacabka reer Somaliland shacabka labada gobol oo haray ama 3 gobol oo haray awdal waaba 100% laakiin labada gobol oo haray shacabka degan beesha aad idinku meesha u fadhidaan oo beesha dhexe la yiraahdo majority-ga shacabkoodu Soomaalinimay rabaan Soomaalinimayna aaminsan yihiin dad yar oo balaayo lagu akhriyay oo qarasta iyo beenta iyo waxa hadda ay qolada gooni goosatada ay wadaan يعني ضد waxaa jiraan xishoono waa buufinayna hadda waxaan arkay qaar aan isiri de waa ka shubeenba